saraakiisha hogaaminaysa ciidamada diidan muddo kororsiga dowladda ayaa iska xulay guddiyo ra-iisul wasaare Rooble kala hadla wixii dhacay. waxaa warkaasi inoo haya warsoo saareheena Subax Maxamed Cabdi. kulan ay Muqdisho ku yeesheen saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya laakiin gadoodka ka sameeyay muddo kororsi oo golaha shacabka bartamihii bishii hore ku dhawaaqay in loo sameeyay hay'adaha dastuuriga ah ee muddaxileedkoodu u dhamaaday ayaa kaga arrinsaday xaaladihii ugu dambeeyay ka soo kordhay siyaasadda dalka maadaama hoggaanka dowladda Soomaaliya ay ka laabteen muddo kororsigii keenay in ay ka soo baxaan xeriyahooda ciidan iyo sidoo kale aagagiid ay ku sugnaayeen gobolada dalka. saraakiishan ayaa difaacyo ka kala sameystay degmooyinka Hodan Holwadaag iyo sidoo kale degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir iyaga oo dhaqdhaqaaq ciidan halkaasi ka sameeyay sidoo kalena ay jireen isku dhacyo mararka qaar dhexmaray iyaga iyo ciidanka dowladda Soomaaliya. saraakiishan oo xalay kulan ku yeeshay aaga sargaalka lagu magacaabo Saadaq Cumar Maxamed oo ah taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir ayaa ka wada arrinsaday sida loo wajihi karo xaaladda taagan iyo baaqi ka soo baxay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo la xiriiray in ciidanka ay dib ugu laabtaan goobahooda maadaama la dhameeyay waxyaabihii sababay in ciidanka gadoodka ay sameeyaan ama difaacyo ay ka dhistaan xaafado ka mid ah Muqdisho. saraakiisha ayaa iska wareystay mustaqbalka ciidamada iyaga haddii heshiis laga gaaro arrimihii siyaasadeed waxaana iska soo xureen guddi saraakiil ah oo ka kooban saraakiishii hogaaminaysay iyaga oo guddigaas u xilsaaray in ay kala shaqeeyaan xukuumadda Soomaaliya xal u helidda mashaakilkii ka dhashay gadoodkooda iyo sidoo kale qaabka ay suuragal u tahay in ciidanka ay dib uga baxaan magaalada Muqdisho iyaga oo aan culaysyo military kala kulmin saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee hoggaanka u haysay ka hor inta aanay ka soo bixin oo aanay Muqdisho ka bilaabin dhaqdhaqaaq ay ku diidan yihiin muddo kororsiga. xubnaha oo isugu jira saraakiil hore oo aan wax shaqo ah ciidamada ka dhaxayn iyo kuwa iyaga oo shaqo ku jira ka gadooday ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ay kala hadli doonaan qaabka ciidamadaasi ay ula macaamili lahayn saraakiisha. waxyaabaha ay soo bandhigeen wararku waxay sheegayeen inay ku jirto in saraakiisha hogaaminaysay dagaaladii Muqdisho ka dhacay ee ciidanka dowladda Soomaaliya xilalka laga qaado si ciidanka ay u helaan kalsooni ay dib ugu laabtaan xeriyahooda iyo difaacyadooda dagaalka ee ururka Al-Shabaab. xubnaha saraakiisha ayaa arrintan waxaa kala shaqeynaya xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale kuwaas oo fariintooda u gudbinaya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. tani markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sabdidii aynu ka soo gudubnay uu golaha shacabka ka hor sheegay inuu dib uga laabtay muddo kororsiga waxaa isa soo tirayay dhawaaqyada la xiriira in laga shaqeeyo nabadda iyo deganaanshaha Muqdisho isla markaana ra-iisul wasaaraha gacanta lagu siiyo hor u socodsiinta howlaha doorashada inkastoo ay jiraan tabashooyin la xiriira in xukuumadda aan si buuxda filla Soomaaliya ugu wareejin amniga guud ee dalka oo ay qayb ka tahay awoodda ra-iisul wasaaraha uu yeelan karo inuu kala qaado ciidamada isku hor fadhiya. hase ahaatee filla Soomaaliya ay sheegtay in ra-iisul wasaaraha ay ku wareejisay awoodda amni ee doorashada taas oo ay shaki badan ka muujiyeen dhinacyada arrintan diidan. waxaase soconaya dadaallo lagu dhameynayo dhammaan madmadowga si xal looga gaaro caqabadihii ka dhashay isku horimaadkii ka dhacay Muqdisho. madaxweynaha xilkiisu dhamaaday ayaa qaray in dowladdiisu ay qaladaad badan ka gashay warbaahinta madaxa bannaan. waxaa warkaasi inoo haya Cabdiqaadir Jakaarta. maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha muddaxileedkiisa dastuura uu dhamaaday ayaa xalay madaxtooyada Soomaaliya ku qaabilay qaar ka mid ah madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay. farmaajo ayaa marka hore waxa uu madaxda warbaahinta ugu hambaliyay maalinta caalamiga ee xurriyadda saxaafadda Soomaaliya adduunka oo shalay ku beegneed waxaana qaar ka mid ah madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay ee xalay la kulmay madaxweyne farmaajo ee la wadaageen dhibaatooyinka mararka qaarkood dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaga yimaado horiyaasha ka howlgala guud ahaan Soomaaliya waxaana ay ka dalbadeen in la dhowro xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda iyadoona markaasi sidoo kale loo baahay in la qaado tallaabooyin muuqda oo ku aadan badqabka saxaafadda Soomaaliya. madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo goobta ka hadlay ayaa qeexay inay jiraan dhibaatooyin marar qaarkood ay la kulmaan warbaahinta Soomaalida hayeeshee waxa uu dardaaran culus u jeediyay qaar ka mid ah madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay ee magaalada Muqdisho ku yaala kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar xalayna kulan uu la qaatay. waa dhab weeye hal mar wax walba ma dhici karaan in la sameeyo maalin walba waxbaa laga baranayaa
saasay tahayna khaldaad waa la geli marka idinku naftigiina inaad madaxiina aad ku haysaan dowladda idinkaa iska leh dowladda cadowdin ma aha haddii wax khaladana waa sheegi kartaan waa feer idinkoo siinaya fursad sababtay u khalad inaad weydiisaan qaar ka mid ah saxaafadda Soomaaliya ayaa mararka qaarkood waxa ay dhibaatooyin kala duwan isugu jira xarig iyo weliba in la qaato qalabka wariyaasha ee ku shaqeeyaan waxa ay kala kulmaan dhinacyada ku hardamaya siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan dowladda federaalka ee Soomaaliya walow 4 sano ee la soo dhaafay ee xoogaa ka wanaagsaneed 4 sano ee ka horeysay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa faray dhammaan ciidamada booliiska in ay ku ekaadaan shaqadooda oo ah sugidda amniga waxa warkaasi noo faahfaahinaya Maxamed Bootaan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Sareegaas Cabdi Xasan Xijaar ayaa soo saaray amar ku socda ciidanka oo muuqda in lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqooda iyo howlaha ay qaban karaan taliyaha ayaa faray dhammaan ciidanka booliiska inay ku ekaadaan shaqadooda oo ah xaqiijinta amniga muwaadiniinta iyo hantidooda si fiican ay ula dhaqmaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed inkastoo Xijaar uusan si gaar ah u shaacin sababta keentay amarkan cusub haddana dad xog ogaal ah oo ka tirsan booliiska ayaa laga soo xigtay in ujeedka amarkan uu yahay in lagu ilaaliyo ciidanka ay ku milmaan siyaasadda ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa loo yaqaan haramcadka ayaa hore ugu lug yeeshay weerar ka dhan ah musharaxiinta mucaaradka iyo dagaalo ka dhacay magaalada Muqdisho si kastaba ma cadda saameynta hadalka Xijaar uu ku yeelan karo ciidankan sababtoo ah inkastoo ciidankan ay hoos tagaan booliiska haddana waxaa si toos ah loogu amraa madaxtooyada oo ay fuliyaan amarada ka soo baxa iyadoo badankooda loo adeegsado ujeedooyin siyaasadeed xubno ku dhow mucaaradka ayaa iyagana aaminsan in amarkan uu yahay rawaayo siyaasadeed oo saraakiisha ciidanka ay iskugu muujinayaan in ciidanka laga reebo howlo siyaasadeed si ciidamadii ka dhashay diidmada muddo kororsiga ee ku sugan Muqdisho loogu cadaadiyo inay ka baxaan sababta ayuu ku sheegeen in amarkan uusan marnaba imaan xilliga ciidanka ay ku lug lahaayeen dagaaladii toddobaad ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ee ka dhashay weerar lagu qaaday musharaxiinta mucaaradka wali waxaad dhageysanaysaan warkii subax idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa madaxweyne Biden ayaa dabciyay xadidaadaha qaabilaadda tirada qaxootiga uu Trump horay u soo rogay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qaaday xadidaadda tirada qaxootiga uu sanadka dalkiisu qaabilayo uu horay u soo rogay maamulkii Trump kadib markii xisbiga uu ka dalbaday inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga tirada la ogol yahay waxa uu ka dhigay 15,000 ilaa iyo 62,500 iyadoo ay weli dhaliilayaan dadka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga Mr. Biden waxa uu sheegay in tiradaasi yar in ay ka turjumaynin qiyamka Mareykanka warbixino bishii la soo dhaafay ee la soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay inay walaac ka qabaan in dad badan oo qaxooti ah dalka lagu soo fasaxo iyadoo ay jirto tirada aad u sii kordhaysa oo dadka soo galootiga ah ay ku sugan yihiin xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico